Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome call on campus ayaan maanta ku wadaaye bal ila joog xoogaha yar inta muuqaalkan aan kaaga dhameynayo faahfaahin dheeraad ah ayaan ku siinayaa si marka muuqaalkan uu dhammaado aad u noqoto qof wixii fahansan. Welcome call on campus WCC sidoo kale waxaa loo yaqaanaa refugee student ama ardayga qaxootiga ah. haddaba programkan waa program dhawaanahanba soo socday oo qolyahan welcome corpska ay aasaaseen oona loogu talagalay ardayda qaxootiga ah iyo jaamacadaha Mareykanka connection fiican in loo sameeyo ardayda halkaan imaadaan halkaan ay wax ku bartaan. haddaba waa maxay welcome call on campus? su-aashan ayaan rabaa inaan kaaga jawaabo kadibna waxyaabaha la yiraahdo eligibility-ga sharuudaha inaan kuu sheego ayaan halkan u fadhiyaa. adigana waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa muuqaalkan qaybta sheerta aad qabato 3 ruux bis ah kuguma badinaye aad la wadaagto. follow isoo dheh haddii aad igu cusub tahay, subscribe isoo dheh haddii aad igu cusub tahay. barnaamijka ayaan wada bilaabaynaa. haddaba welcome call on campus waa hab kale oo ardayda qaxootiga ah ay waxbarasho ahaan ugu imaan karaan dalkan Mareykanka sidoo kale ay halkan ugu noolaan karaan. welcome call kan aad taqaaneen ee group 5 ka la yiraahdo wuxuu u baahan yahay 5 ruux oo Mareykanka ku joogta oo adiga ku dacwoonaysa howl ku fulinaysa. kansas maaha waxaad u baahan tahay inaad tahay arday qaxooti ah mana u baahnid ama waajib kugu maahan in qof Mareykanka uu ku joogo gabi ahaanba. sidaas awgeed programkan haddii aad qaxooti tahay oo Kenyana aad joogto inaad ka faa'iideysato dabcan way kuu fududahay laakiin waa inaad arday aad tahay. applicationka ayaad diraysaa siduu u fudud yahay. applicationka ayaad diraysaa oo codsigii ayaad samaynaysaa. mar alla markaa codsigii aad samayso dadka loo arkay in sharuudaha ay soo buuxiyeen ayaana la xushaa. haddii marka aad noqoto qofkii la soo xushay waxaad imaanaysaa dalkan Mareykanka jaamacaddii lagugu talagalay ayaad tagaysaa halkaas ayaad arday ka noqonaysaa muddo 12 bilood ah ama 1 sanana waa lagu haynayaa kadibna Mareykanka iska dhicinaysaa waxaad baranaysaa. hadda waxa soo xirmay applicationkii 2024 2025 san dugsiyeedkii ayaa soo xirmay waxaana la filayaa ardaydii ka faa'iideysatay applicationkaasi ee la soo xulay inay dalkan Mareykanka imaadaan bisha September 2024 hadda aynu ku jirno. u tartamayaasha sanad dugsiyeedka 2025 2026 waxaa lagu wadaa inay imaadaan September 25 macnaha waxaan ula jeedaa 2025 inay wadankan soo gaaraan ayaa ayagana lagu wadaa. kaasna wuu soo xirmay already dadkii waa la soo kala shaandeeyay interview ay soo mareen waa la soo xushay ugu dambeyntii 2025 bisha September inay Mareykanka imaadaan oo jaamacadoodii ku biiraan ayaa la sugayaa. hadda marka maxaa inoo harsan? waxa inoo harsan waa oo dhawaana la filayaa adigana aan doonayaa inaad ka faa'iideysato waa sanad dugsiyeedka applicationka loo sameynayo 2026 2027 kaasaan doonayaa inaad ka faa'iideysato. sharuudaha hadda ayaan kula wadaagi doonaa waxba ha ka baq. dhawaan ayuu furmi doonaa marka la furo inaad ka faa'iideysato isku day insha Allah. haddaba maxay tahay sharuudaha programkan aadka u wanaagsan ee welcome call on campus-ka la dhaho laga soo gaabiyey WCC? sharuudihiisa ayaan kuu sheegayaa. sharuudihiisa waa number 1 waxaa ka mid ah inaad tahay qaxooti. number 2 inaad haysato UNHCR registration proof of registration inaad haysatid ama caddayn diiwaangelinta UNHCR. inaad haysato waxaa loo yaqaano refugee alien card. alien cardkaasi haddii aad haysatid
sidoo kale shuruudda ayay ka mid tahay waa lagaaga bahnaanaya waa inaad ku nooshahay waddanka Kenya sidoo kale Jordan ayaa ku jirta haddii aad Jordan ku nooshahay aad qaxooti tahay waa xaalad kale mar kale ayaan ka hadli doonaa laakiin tan waxay qusaysaa reer Kenya oo kaliya inaad Kenya ku nooshahay haddii xiriyaha qaxootiga aad ku jirto waa okay haddii qaxooti magaalo jooga urban refugee waxyaabaha loo yaqaano aad tahayna waa okay laakiin inaad qaxooti tahay waa muhiim in kiiskaagu uu yaalo Mareykanka ama uu la jiro qolyaha US rabka la yiraahdo oo interview iyo barnaamijyo hadda ka hor Mareykanka aad u soo martay waa inaad keeni karto RSC African file dadka si fiican ay u yaqaanaan ee Kenya ku jira ee qaxootiyada ah RC African file waxaa la dhahaa waa number KE ka bilaabanaya oo Kenya laga soo gaabiyay kadibna number yar weeyaan oo qof walba haysta waxaana dadka siisa RSC ayaa dadka siisa dabcan da ahaan waa inaad jirtaa inta u dhaxaysa 18 ilaa 24 haddii 18 aad ka yar tahay lagama ogolaanayo application-kaagii oo lama ogola haddii 24 aad ka weyn tahayna lama ogola dabcan sidoo kale waa inaad dhalatay bisha January inta u dhaxaysa weeyaanaya inta u dhaxaysa bisha January kowdeedii 1999 iyo December 31deedii 2005 inta u dhaxaysa sanadahaasi aan soo sheegnay bilahaasi waa inaad dhalatay inaad dhamaysay secondary school ama high school waa inaad dhamaysay oo aad tahay arday dhamaystay heerka secondary schoolka ama heerka high schoolka inaad keeni karto shahaadada secondary schoolka oo original ah waa inaad keeni karto oo aad gacanta ku hayso in grade-kaagu yahay grade C ugu yaraan wixii ka badan A plus A minus B plus B minus soo soco ilaa iyo C haddii C aad haysatid still waad apply gareyn kartaa laakiin haddii C minus aad haysatid ma apply gareyn kartid marka waa in ugu yaraan grade C aad tahay weeyaan markii aad dhameynaysay high schoolkaagi sidoo kale waa inaad ku wanaagsan tahay luqadda Englishka qoraal iyo waliba ku hadalka luqadda Englishka iyo qoraalka luqadda Englishka waa inaad ku wanaagsan tahay inaad tahay single oo aan guursanin oo aan caruur haysanin marka lagu dhaho single oo aan guursanin oo aan caruur haysanin dadka qaar waxa laga yaabaa inay dhahaan single ayaan baahay sidee caruur ku haysan karaa ha single father hadaa tahay waa caruur waad haysan kartaa marka si aadan luuq kale u soo gelin way ku cadeeyeen oo waxay ku yiraahdeen waa inaad single tahay oo aadan guursanin hadda ka hor caruurna aadan haysanin ayaa lagu yiri in ay ku haysato caqabado ka hor istaagayo inaad ku biirto jaamacad tusaale ahaan waxaad ahayd arday high schoolkii dhameeyay laakiin waxa ku haysata caqabad ah in jaamacaddii aad ku biirto nooc walba ha ahaato marka taas haday ku haysato wada cadeynaysa application-ka ayaad ku cadeynaysaa haddaba waxaan filayaa in sharuudaha iyo micnaha welcome call on campus aad fahanteen iyo cidda loogu talagalay haddii marka aad fahantay application-ka hadda ma furno dabcan wuxuu furmi doonaa sanadkan hadda aynu ku jirno 2024 ayuu furmi doonaaye isha ku hay shaaciye one show shaaciye isha ku hay haddii follow aadan ku ahayn follow saaro haddii subscribe aadan ku ahayn subscribe saaro adaana noqon doona qofka ugu horeeya maqla programkaas kana faa'iideysta insha Allah waxaan filayaa in aad ka bogatay barnaamijkaasi intaan dib dambe u kulmi doono walaakina shaaciyo idin la wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh